Subscribe saar janaalka gambaleelkana furo si fiidiyoo walba oo cusub halkan u soo gelino aad u daawato mahadsanid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Akhyaarta ku xiran janaalkayga Hebe Tube kusoo dhawaada maanta iyo muuqaalka cusub. Waa maxay muuqaalka maanta idin wado? 3 sir oo ku jirto taleefankaaga una baahan in dibadda loo soo saaro. Xilliyadii ugu dambeysay qof waliba jeebkiisa waxaa ugu jira taleefan, hase ahaatee dad yar ayaa ka faa'iidaystay faa'iidada u qarsoon taleefanada. Haddaba muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 3 faa'iido oo ku jirto taleefankaaga oona ka qarsoon. Faa'iidada koowaad, IME. Waa maxay IME? IME waa kood ku faa'iideynayo 2 shay. Shayga koowaad, hadduu taleefankaaga kaa dhumo wuxuu awood kuu siinayaa inaad taleefankaaga xiratid ama block saaratid. Faa'iidada labaad uu leeyahay koodka waxaa waaye hadduu moobilkaaga uu yahay mid fake ah ama mid original ah, koodkan dibadda ayuu u soo saari doonaa. Waxba yaa war idinku daalinine ayagoo muuqaal halkan ka daawo. Marka daawadayaal sidee aan u furan karnaa koodka? Marka koowaad taleefankaaga ayaa passwordka ka furaysaa. Marka aad ka furto kadibna waxaad galaysaa phone. Phone-ka markaad gasho waxaad garaacaysaa xidig 4 gees eber 6 4 gees. Markaad garaacdo waxa kuu soo baxayo IME. Haddii kuu soo baxdo 2 IME, taleefankaaga waa dual sim card ama 2 sim card. Haddii kuu soo baxdo 1 IME, taleefankaaga waa 1 sim card. Marka midka doonta ayaa ku dhufanaysaa kadibna okay ayaa leedahay. Daawadayaal maxay tahay faa'iidada afraad oo aan idin hayo? Faa'iidada afraad waxay tahay taleefankaaga adigoo labadaada gacmood u adeegsanin ma ka qaadi kartaa screenshot. Baro sida adoo hal gacan u adeegsanaya taleefankaaga lagu qaado screenshot. Marka ugu horeyso Play Store-kaaga ama App Store-kaaga waxaa ka soo dejisataa application-ka lagu magacaabo Silent Screenshot ama linkiga hoos comment-ka ayaa idin soo dhigi doono. Markaad soo degsato kadib sidee u isticmaalaysaa? Ka daawo halkan sida aad u isticmaali lahayd application-ka aad soo degsatay Silent Screenshot. Marka daawadayaal sidee loo isticmaalaa application-ka aad ka soo degsatay Play Store-kaaga ama App Store-kaaga oo lagu magacaabo Silent Screenshot. Marka aad soo degsatid Silent Screenshot kadib ayaa ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufato waxaa kugu soo baxayo Silent Screenshot oo off ah. Qaybta kore waxaad ka dhigaysaa on. Marka on ka dhigto screen overlay asina off waaye, on baa ka dhigaysaa. Storage asina off waaye, on baad ka dhigaysaa. Screen computer asina off waaye, on baad ka dhigaysaa. Muhiimadu waa saddexdan hadda saas aad tig u saartid wada off waaye, saddexdooda wada on baa had ka wada dhigay. Kadib waad soo laabanaysaa. Overlay icon ayaa ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufato Play off waaye, on baad ka dhigaysaa. Waad soo laabanaysaa. Waxaad galaysaa sensory. Marka sensory aad gashid proximity sensory ayaad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufato ilaa iyo taleefankaaga uu gaarsiisan yahay dareenka screenshot-ka ayaad geynaysaa dhexda ama meesha ugu dambeysa waad geyn kartaa ama meesha ugu horeysana waad geyn kartaa. Dhexda ayaan geystaa aniga. Waad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufato waad ka baxaysaa taleefanka. daawad hadday tahay marka kugu horeysa aad janaalka soo booqato, subscribe inoo saar, gambaleelkana furo si fiidiyoogan
fiidiyooga xigo aad u fiirsato. Sidaa iyo nabadgelyo. Fiidiyooga xiga ayaa inoo balan ah.